السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش قيمة قائل مر والبا نغا داوانيسان halkan waa barnaamijkeeni dunida Soomaalida oo naga barteen mar walba inay ku soo gudbino mowduucan isleenay marka isaga waa muhiim maanta barnaamijkeenan qodobkeena aan ku soo qaadanayno waxay kamid ah ONLF shalay maanta iyo bari halgankii jabhadda ONLF jabhadii ONLF waxa weey ONLF waa halgankii Axmed Gurey weeyaan waa halgankii Soomaalida oo dhan ay soo waday ma jirto ONLF cusub oo 84kii kaliya ma ONLF waxay ka soo farcantay Axmed Gurey waxay ku soo xigay Sayid Maxamed waxay ku soo xigay Nasrullah waxay ku soo xigay Soomaali galbeed kadib ONLF bay timid runtii ujeedadoodu isku mid bay ahayd waxayna ahayd in shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato
ama maaragtay shacabka Soomaaliyeed inay xornimo iyo sharaf iyo cizi ku noolaadaan dhulkooda iyagoon cidna u daba fadhin xuquuqdooda ayay ahayd halganku ujeedo kale ma lahayn runtii halgankaa waxaa ugu qorisu dhiibkaa jabhadda ONLF baa ugu dambeysay oo 35 sano runtii halgan joogtaa ku jirtay sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga qaadi lahayd heeriyada gumaysiga Itoobiya ee bilaa naxariista ah ee bilaa ixtiraamka ah ee bilaa dimuqraadiyadda ah runtii gumaysiga Itoobiya maalina umuuna ogolaan shacabka Soomaaliyeed ee uu adoonsado inay si bini aadama ugu noolaadaan dhulkooda maalina umuuna ogolaanin inay sharaf u noolaadaan maalina umuuna ogolaanin inay Ilaahay u caabudaan si xor ah waxa weeye qayrkood ayuu ka reebay yani qowmiyadaha kale ee caalamka oo dhan buu ka reebay runtii ONLFna dulumka isaga ayay ka halgantay TPLF waqtigii 94kii bay qoriga qaadatay oo xabadda bilowday runtii kadib markii lagu qasbay Ethiopia ay diiday nabad iyo aftidii baarlamaankii Soomaaliyeed waqtigaa u qaaday halgankaa dheer ay jabhaddu ku soo jirtay waxay jabhaddu xabaddu bilaabatay 94kii waqti Soomaaliya ku jirto dagaal sokeeye oo qabiil runtii mayna jirin garab ama waddan xuduuda oo caawinaya oo ka helisay kaalmo laakiin ONLF waxay ku dagaal gashay midnimo mintid isku tashi iyo Allahu Akbar halku dhaga afarta kale nooca ayay ku hawlgashay runtii Mala Zanaawi iyo TPLF waxay ku qasabtay inayna yoolkoodii geeska Afrika ama shucuubta Soomaaliyeed ay la damacsanaayeen aynu u hirgelin Mala Zanaawi isagoo shidaalkii soo saarin oo aan ooman oo murugaysan oo xanuunsan oo welibana lagu mudaharaaday ayuu baktiyey oo gudka galay runtii intii ka dambeysayna ONLF markay isbahaysigii 5 qowmiyadooda samaysay ayay maaragtay runtii Ethiopia israacday kadib markii mudaharaadkii caanka ah ee weynaa ay qowmiyadda Oromada ku kicisay Addis Ababa eeriyadeeda taasoo ku qasabtay TPLF in lagu qanciyo inay xukunka wareejiso si nabada haddii kale Ethiopia ay kala burburayso dabcan faragelin reer galbeedka kadib Prime Minister Abiy Ahmed ayaa waqtigaa yimid runtii wuxuuna sameeyey xiriir uu la sameeyey dhammaan urradii mucaaradka Ethiopia ka soo horjeeday isagoo ugu baaqay oo yiri ma jirto sabab maanta qori aad u sii wadataan xuquuqdii Soomaali hadaatiin iyo hadaad Oromatiin iyo qowmiyadii dulmanaay oo dhan Ethiopia waxaad qoriga ku raadinayseen waxaan idin ogol lahay nabad inaad ku qaadataan ee waddankiina u soo noqda kuna halgama si nabad ah oo qalina ayuu ballan qaaday runtii arrinta iyada dhowqaa ka soo yaray Prime Minister Abiy Ahmed aad bay u soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed runtii aad bay u soo dhaweeyeen waa loo riyaaqay waa loo dabaaldegay ONLFna ciidankeedii iyo shacabkeediiba si nabad ayay waddankii ugu noqdeen sababtoo dagaalku runtii dagaal lagu qasbay buu ahaa dagaal iyagu doorteen ma ahayn haddii halgankooda loo ogolyahay si nabadeed inay sii wataan ayay ahayd maxaa dhacay marka runtii heshiis cad oo qodobaysan oo la wada galay ma ahayn heshiis niyad wadaaga oo guddida fulinta ONLF ay Ethiopia iska aamineen ayuu ahaa iyagoo xeeriye waxyaabo badan iyagoo eegay marxaladda waqtigaa lagu jira ee Ethiopiana gashay isla mar ahaanta qowmiyadaha qabaa'ilada dadka Soomaaliyeed siday u qaybsan yihiin iyo siday u waxyeeleeyeen halgankii xornimo doonka markay ONLF iyagoo ka duulaya yaa waxaa u muuqatay maanta inayna xabad sii wadi karin sidaa darteedna ay ka mudan tahay xabaddii at least bal inay ku qanciyaan dad badan baa waxay lahayn ONLF qoriga haddaad dhigtaan oo Ethiopianimada ogolaataan Ethiopia wayna ogolaanaysaa oo Ethiopianimada waa naloo ogolaya idinkaa qoriga wateen dhiga runtiina dadka xornimo doonku way ogaayeen Ethiopia inayna marna ogoleen walaa xornimo walaa Ethiopianimo labadaba inayna ogoleen sababta haddii u ogosha Ethiopianimo ONLF maynay maateen waa horeetay dadka Soomaaliyeed sida kuwa Kenya oo kaleete nabad ugu noolaan lahayd sababta dowladda Kenya saad ogtiinba dadka Soomaaliyeed ku nool xorriyad bay siisay doorashada ka qayb galeen dowladda ka mid yihiin dabcan waxyaabo badan way ka dhiman yihiin laakiin at least waxay xuquuqdoodii u raadsan karaan sharaf u noolyihiin shacabka Soomaaliyeed Kenya ku nool marka shacabka Ethiopia gumaysato weligood Ethiopianimada looma ogolaan weligood xuquuqdoodii inay helaan looma ogolaan weligood inay maaragtay madaxdooda doortaan looma ogolaan Abiy Ahmed waxaad moodaa in ballantii uu ku dhawaaqay uuna sideedii uga soo baxaynin kadib markuu duulaan ku qaaday qowmiyaddii Oromada oo ah dee qowmiyaddii la lahaa isagu ka soo jeedaa dabcan wax kalena Oromo umuuna weerarin wuxuu diidan yahay waxay Oromadu wadaan taasoo ah
inay oromo rabto dimuqraadiyad iyo qof iyo cod in dadku ay doortaan madaxdooda arrinta iyada Abiy Ahmed iyo qowmiyadda Amxaarada oo iskaashanaya iyo wadamo shisheeye waxay hoosta ka xariiqeen haddii doorasho ay dhacdo oo dimuqraadiyad dhacdo inayna iyo kuraasta imanayn sababtoo haddii la isdoorto oo doorasho dhacdo qowmiyadda oromada majority iyakaa noqonaya awoodda koowaad sidaa darteed waxay istuseen inaan marnaba doorasho aan Ethiopia la qabanin doorashana ayna suurtagal ahayn sidaa darteedna la sameeyo hal xisbi xisbigaas ugu yareen Medemer xisbigay dhaheen maaragtay Medemer yay sameeyeen xisbigaas waa xisbi shuuci camal ah runtii waxay rabaan waddanka inay afduubaan sababtoo dhiigana ay ka jaqaan yani sidii awalba Minilk soo sameeyey Haile Selassie soo sameeyey uu Mengistu soo sameeyey uu Mele soo sameeyey tiim mid la mid ah ayay Abiy Ahmed iyo tiimkiisana rabaan oo ah in dadka oo dhan intii la caburiyo loogu dhiibo maamulka dad qayb mas'uul ah kuwaasoo dadkana ka naxayn dalkana ka naxayn fuliyana awaamirta ay u soo dhiibaan waxay ka dhigan tahay markaa halgankii iyo dulumkii dadka Soomaaliyeed inuu meeshiisi ka sii soconayo haddii aan isbedeliman already Ethiopia hadda dabku meel walba ka baxaya Oromiyo way dagaalamaysaa Benishangul wuu dagaalamayaa TPLF way dagaalamaysaa Anfar iyo qowmiyadahan kaleetana la mid weeye Soomaalidu maalin walbaaba la dilaaba waad aragteen waxa ka dhacaya deegaankan lafaciisi iyo waad aragteen ONLF marka xubnaha iyo kaadirka ONLF waa inay ogaadaan halgankii ay u halgamayeen ay u dhaarteen ee ahayd in shacabkooda dulumka ay ka saaraan weli muuna dhamaanin geedigu wuu sii socdaa nasiib darro waxaan arkahaya xubno iyo guddi fulina oo madaxdii jabhadda oo gudaha galay in kala duwanaansho fikir iyo isku mashquul badan uu aad u dhacay iyagoo isugu muuqashadooda iyaga dhexdooda ayaa isugu muuqdaan arrintaasoo ah arrin aan saxayn runtii inay isu muuqdaan waxay hilmaameen markay isu muuqdaan meesha ay joogaan bay hilmaameen waxay hilmaansan yihiin in xataa iyagoo midaysan oo wada jira aan waxba loo ogolayn qofka bini'aadamku wuxuu isqabsadaa markii wax loo ogol yahay markuu xor yahay markuu deegaankiisa isagu maamulanayo markii meeshii kursi yaallo markii meeshii hunguri yaallo markaasoo kaleetaa la isqabsadaa laakiin adoo arka idinkoo midaysan baa waxba ladiin ogolayn maxaad u malaynaysaan marka haddaad kala qaybsataan oo hebel baa kan maadey baa inta maray iyo hebel baa inta maray iyo Axmed Yaasiin baa kana iyo hebel Riyaal Xamid baa saan yiri haddii la dhaho maxaad u malaynaysaa marka waa masiibo weeyaan runtii marka waxaan rabay live-kan yar soo galay inaan dhaho mas'uuliyiinta gudaha galay ee awalna Ethiopia uga soo qaaday shacabkii halgamayay go'aanka isaga waxaan dhihi lahaa ilaahay ka xishooda waxaad ka xishootaan agoontii ka xishooda waxaad ka xishootaan wiilashii soo halgamay ka xishooda waxaad ka xishootaan dadka wada dhiban dadka halganka soo galay korkooda inaad isku qabsataan ka xishooda waynu iswada ognahay intiina guddiga fulinta dhammaantiin qurba joog baad ahaydeen qorina maydaan qaadin oon badanna idima soo qaban runtii dhibka dadkaa soo gaarayna wax la soo koobi kara ma aha wiilka dhalinyarta ee lixda lixaad beelay ee maanta aan nolol adduun ayna u harin ummaddaadana xore u dhintay mabdi'iinii iyo abaabulkiinii darteedna u dhintay inaad maanta ku jeesteestaan kurkiisa intaa isku qabsataan midba meel mikrofon ka qaado oo idaacaddii quran wada aado kana uu halkan aado idinkoo isu muuqdo oon eegayninba dadkii hoos u eegaynin runtii arrintaa iyada waxaan u arkaa arrin nasiib darra ah maqaam ONLF laga filaye maaha maqaam nin halgamaa laga filayey maaha dadku way isqabsadaan waana la kala fikir duwanaadaa waqtigii asxaabta iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa fikirka lagu kala duwanaa laakiin waxaa loo baahan yahay mar walba in haddana wax uun la xeeriyo in laga fiirsadaa loo baahan yahay marka waxaan dhihi lahaa madaxda gudaha joogta oo guddoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi ugu horeeyo iyo guddiga fulinta iyo maaragtay kawaadirta joogta waxa idinka soo baxaya wax caafimaad qaba maaha wax qaylada idinka soo baxaysa iyo ishays dhaqankaas dhaqan islaamnimo maaha dhaqan ururnimo maaha dhaqan xornimo doon maaha dhaqan masaalixdii ummaddii intaas maal naf iyo waqtiba soo gelisay waxay idinka filayeen maaha marka waxaan dhihi lahaa naftiina ku noqdo oo isxishooda oo ilaahay ka baqa naftiina ku noqdo oo ilaahay ka baqa ayaan dhihi lahaa walaalayaal
yayna dhicin inaad idaacadihii gumaysigu adeegsan jiray intaad soo fadhiisaan aad ONLF ku dhaliishaan oo idinku faraa isku fiiqfiiqdaan laakiin waxaa ka habboontaa beddelkeeda in maaragtay aad kaadirkii waad jirto ama dibadda usoo baxa ama gudihiiba way jiraan in dooda la sii wado in hawshii la kala wado waxaad awoodaan xataa haddaydan idinkoo kala labaa in mid walba shaqadii ummaddiisii u qabto oo wuxuu isleeyahay waad u qaban kartaa waad horumari kartaa aad horumariso arrinta iyada waa very important weeyaan runtii waxaan idiin sheegayaa hawshanu cabdiraxmaan sheekh mahdi maade waa la doortay waxaa dooratay jabhadda ONLF baa dooratay waqti baa la doortay maaha nin weligiis joogaya waqti mucayana ayuu joogayaa waqtigaa isagana wuu tegayaa awalna saasoo kaleete maxamed cumar cismaan baa soo maray wuuna tegayaa cabdiraxmaan waxyaabo badanna wuu saxayaa waxyaabo badanna way ka khaldan yihiin runtii in la dhaliilo oo la saxana waa muhiim isagana inuu dhaliishiisa intuu qaato uu dadkii qanciyo oo hogaamiye weeye maanta leadershipkiisu ay noqoto mid dawa ah oo dantii guud uu ka shaqeeyo runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka waxaan dhihi lahaa runtii kaadirka jabhadda taageerayaashooda meel walba joogtaan inaydan horta niyo jabin inaad maaragtay sayidina abubakar calayhi salaatu wasalaam waxaan ka wadaa sayidina abubakar radiallahu canhu iyo nabigu markay qaaral xiraa ku jireen labadooda keliya ahayn cadowgiibaa maaragtay dul taagnaa markuu dul taagnaana waad ogeydeen markuu masna ugu soo galay godkii markaasaa dee maskii baa qaniinay markaasuu isagoo nabiga ka ilaali islebaa ilintiisi baa kusoo dhacday markaasuu yani nabigii buu yaa ku toosay ilintii wixii uu arkay waanad ogeydeen wuxuu ku yiri laa taxzan in allaha macanaa buu ku yiri ha murugoona ilaahay baa nala jira waxaan marka idin leeyahay ONLF waxaa weeye jabhadda ONLF qof walbo xaq ku taagan oo xaq ku soo halgamay adduunkana uu ku liibaani aakhirana uu ku liibaani hadday ka daacadahayd weeyaan qof walba oo munaafaqad iyo danaysi iyo hunguri iyo kursi iyo qabiil ugu jirayna adduun wuxuu soo qabtay oo dhanna way ka fashilmayaan aakhirana wuu eedayaa mar walba marka walaalayaal marna taageerayaashu idinka qalbi jabin haddaad aragtaan rag mas-uuliyiin sheegaya oon u dhaqmaynin si mas-uulnimo ah ha ka murug jabinana idinkoo faraxsan shaqadiina qabta qof walbooba waxaad awooday karaankaaga ah eed ummadaada dulumka intay ka baxayso dulumkii kama bixin xuquuqdoodii mayna helin xornimo lama gaarin xataa etoobiyana looma ogola shacabkii soomaaliyeed etoobiya gumaysanaysay meel marka wax lagu joojiyo ma laha intaasoo dhaawaca iyo intaasoo agoona iyo intaasoo armali ah iyo intaasoo jirdul jeelogaadeen uga soo baxay intuba way joogaan intubana waxaa eel waa dadkii xubnaha sheeganaya runtii aad iyo aad baan uga xishoodaa ama aan uga khajilaa markaan arko nin mas-uul oo caafimaad qaba oo lixdiisii lixaad qaba oo ama yacni oo guddi fulin ilaa heer guddi fulin dad gaadhay oo jabhadda ONLF oo aan hoos u eegaynin dadka dhibka soo gaadhay aan hoos u eegaynin xubnihii iyo halgankii lasoo maray aan hoos u eegaynin inta nin ee qaali ahaa ee qiimo badnaa ee guddi hoostii galay runtii intaaba aan hoos u eegaynin ee naftooda keliya iyo siday la tahay iyo sida la qurux badan keliya fokuska saarayo anigu waxaan dhihi lahaa walaalayaal arrinta iyadaa meel kuma tegaysaan magacna kuma helaysaan arrinta iyadana arrin saxa maaha waxaan ugu baaqayaa guddoomiyaha jabhadda ONLF dhowr shay baa laysku haystaa maalinkaan sheegay dhowr shay in laysku haystana ma dhoweyn waxa ugu badan ee jabhadda ONLF isku hayso waa xeerka macadda xeer qeexan oo la garan karo oo lagu kala baxo oo qof walba xaqiisa siinaya oo qof walba wuxuu xuduudkiisa qeexaya ma jiro xisbigan siduu qoriga u dhigay muuna qeexin ujeedooyinkiisa iyo yoolkiisa iyo xeerarkiisa iyo qofka xubinka ka ah waxa waajibku ee laga rabo hadduu samayn waayana uu ka baxay ma aha weli waxaad moodaa xeer waynu lahayn oo kii jabhadda camal baa laga soo qaadaya jabhaddiina ma aha waqtiga qoriga la ridaya ma aha nidaamku sidii ma marka waxay u baahan tahay jabhaddu intay shirto inay nidaam xeera samayso khilaafkii doorashadii soo dhacay oo kaleeto si uuna u dhicinna in doorashada soo socota loo diyaargaroobo haddii aan loo diyaargaroobin markii la gaaraa lagu sii qabsan doonaa oo tii hore mid ka sii foolxun ay dhacaysaa waxaa la yidhi daadku intuunu kusoo gaarin ayaa laska muusaa arrinta iyadaana waxay mas-uuliyaddeeda koowaad saaran tahay guddoomiyaha iyo guddiga fulinta iyo maaragtay golaha dhexe mas-uuliyiinta golaha dhexe in xeer qeexan oo doorasho uu jiro
oo qof walba oo doorasho ka qayb galaya uu cad yahay sida ku soo baxay in hadda la sii qoondeeyo xeerkaa markii laga tago waa in la qoondeeyaa qaabka maamulka u shaqaynaya iyo awoodaha kala duwan gudoomiyaha awoodiisa hogaanada kala duwan hogaan walba awoodiisa qaabka laisu dooranayo qaabka maaragtay qol anshaxa laisu marinayo waxaan oo dhan waa in buug cusub oo xisbigu leeyahay soo baxo buugga isaga ayaa wuxuu qeexi doonaa qofka dembiilaha iyo kaan dembiilayn ka saxda iyo ka aan saxda ahayn runtii madaxda jabhadda maadi iyo cabdiraxmaan sheekh maadi iyo xasan macalin baa cadowgiisu aanu ma aamini karo mana sadaqayo sababtoo ah saddexdooda oo wada socda shirkii oosla ka dhacay ee 2015 bishii Oktoobar ee ururada Itoobiya lagu leeshiinay saddexdoodaba iyagoo wada qoslaya oo walaalo oo isjecel bay wada fadhiyeen marka shalay iyagoo walaalaha inay maanta cadow isku noqdaan waxaan aaminaya ma aha laakiin waa ibliis dhaqankii iyo maaragtay waxyaabo kaleeto baa jira aan aaminsanahay waxaana dhihi lahaa in ay ragga iyaga mas'uuliyiinta ay dib usugu noqdaan naftooda ay shaydaanka iska naaraan waxa ay xilka ay qaadeenna culays u leeyahay ay eegaan oo ay xubnihii iyo kaadirkii iyo jabhaddii ay ixtiraamaan runtii waxa u dhaxeeyana la xaliyo waxa ugu dhibka ugu badan meesha yaalana waa xeerka yaxan hadduu jiro gudoomiye wuxuu xaq u leeyahay sheegaya uu sheegayo mas'uuliyiinta kale nin walba xaqiisa sheegayo ma yimaadeen waxan doorashada soo socotana qaabkii loo geli lahaa ay qeexan tahay cid ku mashquuli lahayd male laakiin markuuna xeer ku jira nin walba ana ila tahay buu dhihi ana ila tahayna adduunku ma socoto sababto aabbaha iyo adigaan ku heshiinaynin waxay ila tahay saan marka waxaan kula talin lahaa in xeerka loo noqdo khilaaf ma jiro colaad ma jirto cadaawad ma jirto rag saaxiibaatiin rag soo wada halgamaatiin rag ilmadeera baatiin intaba rag muslima baatiin islaamkuna runtii waxaa fiican khilaafka aad buu deeriyey waxa weeye wactasimu bixablillahi jamiican walaa tafaraqu war xarig ilaahay qabsada oo qaybsamina haddaad qaybsantaan xumaantiina baxaysa waana fashilmaysaa marka ma u malaynaya inaad fashil go'aansateen wixii aad energy iyo waqti soo gelisay inaad fashil ka doorataan mana ku guulaysanaysaan qaybsan iyo muran waxa idin dhexeeya waa xeer qof walbana waqti baa la doortaa waqtiguna ku dhammaadaa waxay la quman maaragtin arrinta iyadaa la soxo jabhadda ONLF waxaana xubnaha ugu bishaaraynayaa marna hawlwelina qofka xaqa wuu soo haray qofka baadilkuna wuu buray yacni ilaahay wuu noo caddeeyey yacni wixii wanaagsan ee dadka anfacayana way soo haray wixii xune mala yacni uu tigi qofkii halgankan ula socday isku tustus iyo danaysi ma xamilayo wuuna ka tegayaa qofkii laakiin halgankan daacad ka ahaa kitaabku maray garanaya wiilashii dhaawacmay gabdhaha nolosha ka dhacay xaalkii lasoo maray ogna wax walba oo khalad u yaalla sidii looga gudbi lahaa ayuu xooggiisii isugu geyn caqligiisii iyo cuudiisaba wayna ka gudbayaan runtii islaamkuna ma ogola yeeaska qalbijaabka qofku islaamka lagama rabo inuu iska qalbi jabo yani meel cidlaa saan wey maadayba ay hor yimid mana la shaqayn karo waan iska qalbi jabay maadayba saan yiri no ma aha waxaas maadi hadduu xun yahay xitaa haddii laga qaadi karo waa laga qaadi oo sharci loo adeegsan karo laba wey baa maadi looga qaadi karaa kursiga waa golaha dhexe oo 3 meelood oo 2 meelood ay go'aan shir degdeg iclaamiyaan una yeeraan kalsoonida kala noqdaan waa qodob weeyaan iyo dembi cad oo galay oo qadiyadii liid ku ah oo maxkamad la soo saaro inta markayna jirin sabab looga qaado male maadi waxa lagu qasbaya in la shaqeeyo garbaha laga qabto isagoo wixii ka khaldan mar walba ee fudud in labada category gaaraynin oo dhan loo dul qaadanayo lana ogaado waqti inuu jiro sidaad ogtihiin bakhaladku mar walba way jirayaan noloshu waa meel imtixaan ah waad ogtihiin nabi muuse isagoo dhalanin baa saad u dhashay baa webiga la raaciyey nabi ibraahim nabi yuusuf waad ogeyn ceelkii lagu riday iyo dhibkii uu soo maray ciise waad ogeydeen waa wicil baa ku bilaabatay saad u dhashay isagoo gaaray nabi maxamed agoon iyo rajay buu ka bilaabay adduunyadan waa meel la isku wada imtixaanayo waxaan xasuusinayaa gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha jabhadda ONLF taageerayaasha xisbiga walaalayaal waa la is imtixaanayaa marka imtixaanku iyo naseerteedan qaadanin mar walba sabirka iyo dulqaadka iyo in dadkii dhaawacmay adeegtaan qulubtooda agoontii adeegtaan qulubtooda dadkiina aydan qaybinin ee sidii u gaar lamaadey haddaynan ka helin berri wuu tegayaa berri waxaa laga yaabaa qof saxa inuu yimaado oo ka karti badan oo ka aqoon badan oo ummadda toosiya laakiin gumaysigu maanta wuxuu rabaa ONLF inuu kala daadiyo sababta ONLF waa tiirka keliya ee Soomaaliyeed ee maanta jira wey ee wax abaabuli kara
dan Soomaaliyeed ka hadli kara gumaysigu uuna samaysanin waa tiirka keliya jira tiirka isaga maanta waad aragteen markii ay ka dhacaan lebi ciise ama ay city la xasuuqo madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka Soomaaliyeed ma hadli karo golihiisa wasiiradu ma hadli karaan ciidankiisa liyu booliisku ma hadli karaan sababtoo dhammaantood waa dad loo abuuray inay gumayska u shaqeeyaan awaamirta gumayska waana loo sheegay ma hadli kartaan baa lagu yidhi wax dan ayu wax fariin loo dhiibo bay qaadaan oo soo sheegaan shaqo la yiri soo qabto bay gumayska u qabtaan laakiin hooyadood haddii la gowracayo ma dhihi karaan maxaa loo gowracay cidda keliya bayaan ka soo saari karta ama ummadda Soomaaliyeed u hadli karta war dadka maxaa lagu laayay tiri ONLF baa in ONLF marka in duulaan lagu yahay shaki kuma jiro oo raba in la kala tuuro waxaan dhihi lahaa walaalayaal yaan la kala tuurmin yaana la qalbi jab baan dhihi lahaa waxaan u sheegayaa dad badan baa laga yaabaa inay isleeyihiin kala tuura jabhadda runtii jabhaddan ONLF way xididaysatay mana kala tuurmayso intay baahidi jirto oo ah in dadkaasu ay dulman yihiin xuquuqdoodiina inaysan way soo taagnaanaysaa wayna sii abaabulaysaa mana ku qalbi jabayaan qof walba oo isagu aan waxaan marka kula talin lahaa qofkii isagu aaminsan ONLF soo ahaa aan ku qanacsanayn go'aansada halgankii inuu isaga tago way kala tahay qof ONLF oo rabo ONLF in la saxo oo dhaliil tirsanaya qofka isaga waa la gartay waa halgankiisii buu dhinaca kaga jiray laakiin dhaliishii buu sheegaya qofka isaga waan fahmaynaa laakiin qofkii ONLF isagoo soo ahaa u arkay ONLF wadada hayso inaanu xamili karin ama inuu isaga tago inay tahay runtii waxaan u arkayaa ceeb inuu isagoo ka tegey ama ka baxay inuu mar labaad ONLF ka sii hadlo oo ONLF sii eedeeday ama ONLF sii daba eedeeday qofku wuxuu ka tago uu isaga tagaa waxaad ka tagto waa bakti wey baktina lama sii qaado waxaa lagu mashquulaa mustaqbalkaaga iyo noloshaada waxaa weeye anigu maanta taageero ONLF baan soo ahaa qurbaana ku taageeray qurbaana ku waday oo mudaharaadka iyo waxaan baan ku jiri jiray haddiise aan u arko maalin inaanan ii cuntabin meeshan oo isaga dhaqaaqo 1 minute kama hadlayo waxaan ku mashquulayaa noloshayda meeshii kaleeteen la damacsanahay runtii sababta waxaa laga yaabaa dembi badan inuu kaaga yimaado haddii qadiyadan aad oo xaq ah aad adoon iso weyn ama quruur intuu qaado ama cadho ay ku qaado aad si xun ula dhaqanto waxaa laga yaabaa in dad muslina oo agoona iyo maaragtay kuwa dhaawac ah iyo dad intaasoo la caawin la dartaa inaad burburinta aad burburisa aad ka qayb qaadato oo aakhiradaadi meel cidlaa ku dhacdo marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal aakhiradiina u baqa kitaabkaad marteen ugu baqa qadiyadii qofkii ku qanci waayo ama guddoomiyaha ku qanci waayo ama shaqada say u socotay ku qanci waayo sidii aad u aragto inaad u qaban karto waxay u hagaajin karto u hagaaji baan dhihi lahaa inta iyaga waa dadka qadiyadda guddoomiyaha dhaliilaya ama qadiyaddaba isaga aan kusii qanacsayn oo isaga baxa xisbiga waxaa kuu soo hadhay guddoomiye cabdiraxmaan sheekh maadan maadey guddoomiye howl adag baa kuu taala xilkan maalinkaad qaatay lagu dhaariyey ummad gumaysi ka soo baxday oo baaba'san oo silacday oo jirdil iyo agoon iyo isugu jira nooc walba baad mas-uul noqotay waajibaad aad u adag baa ku yaala waxaa barnaamijyo degdega lagaa rabay runtii waxaa lagaa rabay ummaddii inaad dardargeliso in wax walbo khilaafa oo utuna aad daweysa baa lagaa rabay in dadka qulubtoodii iyo farxaddoodii ay awalba wada farxi jireen aad soo celisa ayaa lagaa rabay runtii dhaliil way jirtaa guddoomiye dhaliil badan baa jirta runtii loona baahan yahay inaad saxdo waxaa weeye qaabkii hadda lagu soo socday qaab saxa maahayn waxaad u baahan tahay qaabka ugu muhiimsanna waa xeerka jabhadda in la saxo wey meesha ugu badan ee layska haysto waxaa weeye xeerka guddoomiye sida ay kula tahay keliya maaha waxaa weeye jaaliyadihii dibadda oo dhan wax la tashta malaha jaaliyadihii dibadda oo dhan war saynu yeellaa malaha shaqadii ay jaaliyadihii dibadda hayeen oo dhan cid soo aada malaha dhaliisheedana waxay ku soo noqonaysaa guddoomiyaha iyo tiimka aad samaysay marka waxaan u baaqi lahaa guddoomiyuhu inuu hawsha iyada ah uu sameeyo dadka wax tabanaya ee kaa soo horjeeda ee u arka saad wax u waddo inay khalad tahay inaad dhegaysato oodan cadow ka dhigan inaydaan idaacadaha laga cayn in ragga tiimka ee hareerahaaga aad u sheegto inayna aflagaadaynin xubnaha adig ku caynaya ama adiga kaa soo horjeeda ama adiga fikirkaaga u arka inuu khaldan yahay waa inaan cadow loo arkin waa in loo arko ninba qaabkuu fikirayo lagu qiimeeyo kii qabiilka ugu nacab inuu ninkaa qabiilka ugu nacab yahay loo arko ood guddoomiye u tahay haddii uuna lafi adaa guddoomiye u ah haddii uu isaga baxayna dee wuuba isaga baxay
marka gudoomiye tiimka kula socda iyo adiga waxa ku taala kuma taala maanta dhan inaad ku mashquulshaan Axmed Yaasiin baa saa yiri iyo Xasan Macalin baa saa yiri iyo Xuseen Nuur baa saa yiri adiga iyo tiimka aad madaxda u tahay gudub fulintu waxa idin taala shaqaale idin rabaa wax qabad baa idin rabaa dirdirgelin baa idin rabaa ummadii inaad u shaqaysaan waa inaad ficilkiina ku hadashaan laakiin haddaad u jawaabtaan oo dad aad is haysataan oo noqotaan waxay noqonaysaa shaqadii ummadda meesha ka baxaysa marka gudoomiye waa in hadal wanaagsan ixtiraam qadarin daweyn isu soo dhaweyn muddadan lagu doortay waa inaad ku shaqayso barnaamijkana la saxo wixii saxana uu saxan yahay wixii khaldan la soco xeerka jabhadu ma dhamaystirno xeerka xisbigu ma dhamaystirno arrinta iyadana maalinkii koobaad baan ka hadalay marka waxaan dhihi lahaa gudoomiye arrinta iyadaaba laga howlgalo waxaana dhihi lahaa xubnaha gudoomiyaha taageersan ee gudoomiyaha maaragtay qaab qabiila u taageeraya waxaan dhihi lahaa walaalayaal gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi qabiil ma aha kaaba qabiil ma aha Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi waa gudoomiyaha jabhadda ONLF xubnaha ONLF oo dhan buu dhaxeeyaa way dhaliili karaan way canaanan karaan way kasoo horjeesan karaan xuquuq way leeyihiin qofkaad aragtaan isagoo dhaliilaya cadaawad ha u muujinin hana caynina ixtiraama fikirkiisi way ku qadariyeen fadlan gudoomiyahana ha u samaynina cadow auna u baahnayn gudoomiyaha waxa keliya u baahan yahay waxa weye inayna qaylo kicin wuxuu u baahan yahay dad wada faraxsan wuxuu u baahan yahay shaqo wanaagsan waxaa la rabaa in gudoomiyaha markaad taageeraysid waqtigan uu hayo inaad dad kala didisaan maa waa inaad dadka soo dhaweysaan waa inaad dadka walaalow soo dhawaada maxaa khaldan oo gudoomiyahana se u saxnaa waa inaad daadaan laakiin inaad gudoomiyaha cadaawad u abuurtaan oo dadka oo dhan ka hor keentaan maaday baa gudoomiyaha keligii waad ku qasban tahay xageed aadaysaa saan ma aha absolute ama qaar beelaad aad u fikirtaan weeyaan ONLF waa mabda weyn maaha qabiil beel maaha jifa maaha fadlan waxaan idin xasuusin lahaa inaad dib ugu istaagtaan qoraalada aan gudoomiyaha waxbaan fahayn weligaa markaad qof wax xukuma ama qabaaraarnimo ku taageer ama mabda ku taageer aad taageeraysid dadka ka soo horjeeda negative looma muuji dadka ka soo horjeeda waxaa isku dayaa inaan la durin dadka ka soo horjeeda waxaa loo baahan yahay in hadal macaan iyo luqad wanaagsan loogu tago sababtoo oraaba waxay dhahdaa qaada malaba waxaad ku dili karto foosada carab kuma dishid hadal xun dadkoo dhan bay kaa kaxaynaysaa Cabdiraxmaan wax u tari mayso waqtigiisiina waxa weye ishaysad buu kaga dhammaanayaa waxaan dhihi lahaa marka qof mas-uula markaad taageersantahay qaabka ugu wanaagsan ay u taageeri karto waa inaad shaqadiisana si fiican u qabato dadkana aad u soo abaabusho qadiyadiina aad u shaqayso isagana aad cadow u samayno fadlan ha laga daayo ONLF qabiil maaha beelna maaha jifana maaha lamana kala laha qof walbana xaq buu leeyahay gudoomiyaha inuu dhaliilo inuu kasoo horjeestana xaq buu leeyahay labadaba waa inaan loo arkin dadka kasoo horjeeda iyo dadka dhaliilaya inay cadow yihiin inaan lagu caraatano runtii waa in maaragtay qaabka loo qorayo qoraalada iyo languageka gudoomiyaha inay noqoto qaab positive weeyaan Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi qof walba xubin ONLF hadduu caytamo iyo hadduu ammaantamo intaba isaga gudoomiye u marka waa in sidaas loo fikiro positiveka ayaan qabaa runtii waxaa kaleeto aan maaragtay aan intaa dhihi lahaa Cabdiraxmaan waqti kooban buu maamuli doonaa jabhadda waqtigaana uu dhammaan doonaa walaalayaal marka u sabra waqtiga iyada hala sabro waxaan rajaynayaa wixii isaga aan ka weyn waxaan rajaynayaa ka dambeeya inuu la yimaado runtii waxaana loo baahan yahay in la wada tashado waxa weye nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi war qofkiini waxun arko gacanta ku bedel gacanta haddaa awoodi weydo hadal ku bedel hadalka haddaa awoodi weydo qalbiga ka nac waxa weye waa inaad guudkaa martaan runtii maalin dhaweyd waxaan arkayay mas-uuliyiin guddiga fulinta qaarkood ku soo jireen oo xilalka iska casilay arrinta iyadaa qaabkay mareen waa qaab saxa weye waana qaabka ugu habboon weye inay iscasilaan qofka mas-uulka markuu arko mas-uul una la shaqayn karin intuu u saxo isku dayo uu saxi kari waayo waddada u bannaan waxay tahay inuu iska casilo oo dhaho xilkaa hadii aan kulama shaqayn karo waxna iga maqli maysid sidaad wax u wadan kuma qanacsan waa protesti nadiifa oo caadila oo aan buuq lahayn dadka marka noocaa sameeyey soo dhaweyn bay mudan yihiin in lagu nacaan maa way isku dayeen intay wax sixi kareen way sixi waayeen waxay doorteen iyagoo ummaddoodii waxay u qaban karaan u qabanay inay mas-uuliyadda iyo la shaqaynta guddoomiyaha ama guddiga fulinta ka baxaan dadka iyaga yaan laga sii daba caraatamin waa caadi weeyaan iyaga laakiin maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa guddoomiyihii iyo tiimka la shaqaynaya inaynan istaakula ku noqonin haddii
intay dhahaan guddoomiye kula shaqayn mayno markii oy dhahaan kulama shaqayn karne bannaankan u baxnay haddana ay isagii lugta isaga maraan oy bannaankaas ka duryamaan ama ay maanta oo dhan cabdiraxmaan baa kana ku hayaan micnaheedu maa inay xilkii wareejiyeen waxay u wareejiyeen waxay noqonaysaa ujeedda guracan oo asaan raba iyeel ay noqonaysaa marka waxaa loo baahan qofku markuu xilka wareejiyo inuu sugo oo waqti siiyo mas-uulka isaga bal maadaama dadku isfahmi waayeen oo dhan hadday xilkii baneeyeen inuu dhaqaaqi karo inuu wax qaban karo bal wuxuu sameeyaa loo baahan guddoomiye marka iyo tiimkiisa raggaa tiimka ee ka fikir gudwanaa ee xilkii baneeyey waxaa looga baahan inuu soo geliyo dad wax qabanaya hadduu lahaa shalay kuwaasa caqabadii waa marka kuwan dambe la arko haddii uu wax qaban waayo marka hadday nimankaas intay aamusaan caqaladay ku hayeen guddoomiye ay ka baxaan waxaa laga rabaa marka waxaa la ogaanayaa hadduu guddoomiyuhu dhaqaaqi waayo oo hebel baa saa yiri iyo hebel baa iyo dadkii baxay uun magacoodii ay sii hayaan marka waxay dhimanaysaa nimankii baxayna waxay sheegayeen inay run noqoto dhaliilo badan baana soo baxaya insha allah ilaah jiraado waxan iyo isqabsiguna waa iska caadi weyn waana wax laga gudbi doono gabdhaha iyo wiilashana waxaa loo baahan inaad hawshiina sii dardargelisaan waxaa laga yaabaa waxaad arkaysaan idinkuna weyn gumaysiga hoosta kaga jiro gumaysigu way dhibaysaa dad abaabulan oo organisa oo xornimo doona oo xuquuqdoodii raba oo isku xidhan marna ma ogolaanayo weynugnahay qabiil buu kusoo geli kuraas buu kusoo geli danaysi buu kusoo geli intaasuu joog kusoo geli laakiin waxaa looga baahan yahay xubnaha iyo kawaadirta meel walbay joogaan inayna fursaddaa siinin inayna cadowga fursaddaa siinin qaabka lagu siinayana waxay tahay inaan dadka la kala geynin in dadka walaalaha ay soo wada halgamay ee saaxiibadaa aan cadowga iska dhigin xataa kuwii halgan ka baxayna la caayin inu wax gudbin kuwa ku jira ee fikirka ku dhaliya guddoomiyahan inaan cadow laga dhiganin kuwa shaqada haya ee ku jiraan waxaa looga baahan yahay shaqadoodu inay noqoto shaqo muuqata barnaamijaysan qodobaysan qorshaysan oo khaasatan xeerka anigu dhib kale ima muuqdo ma aaminsani mana sadaqayo xasan macalin iyo axmed yaasiin iyo maadiba cadow soo iyo xuseen ma aaminsani I don't believe laakiin waxaan aaminsanahay xeerku inuuna caddayn nidaam saxa inaan la maraynin markii nidaam sax la mari waayana dadku waxay noqonayaan sida ritim macsaro shiidaya qof walba saanay ila tahay saanay tahay baa madax la isla geli taana waa wax caadi ah adduunka oo dhan bay ka dhacdaa laakiin taa in loo saxaa loo baahan insha allah ilaa jiraad jawxo meel walbay joogtaan sabra waad guulaysanaysaan runtii hawlwelina guushu mar walba niyaddaada la xisaabinaya waxaana idin leeyahay qalbi jabinana ilaa maalinka ugu dambaysa waan taagnaanayna waan quslayna waana farxayna haddaan adduunku waxaad rabteen ku weydaan aakhiraad ku helaysaan qof walboo dadkiisa sharaf iyo xornimo la damcay oy daacad ka ahayd wuxuu welwela ma leh laa khawfa calayhim walaa hum yaxzanuun laakiin waxay murugo u sugnaatay ka dadkii dhahay kaalayo dagaalama kaalayo xornimo raadiye ee agoontii meel cidlo ah aabbayaashood markay shiideen agoontii iyo armalooyinkii iyo dadkii oo dhan iyo susabkii oo dhan meel cidlo uga dhaqaaqa ee calooshiisa keliya ka fikera ee maalin walba idaacaddu soo istaago maaragtay onlf wax ka sheegaya yacni qofka noocaasa ama dadka noocaasa waa dadka ugu daran wayaan waxaan madaxda gudaha ku jirta labada dhinac ay yihiin ugu baaqayaa inay meediyaha fariimaha inay isu mariyaan ay joojiyaan gudahaan inay maaragtay wadaxaajood hoose oo sudabqaada uu socdo waxa laisku diidan yahayna la caddeeyo lana saxo horena loogu gudbo inaan isku kalax tegin waxaan berri baa saxmi karaan dadka shalay cadow isu moodaya oo berri wada fadhiyaad arkaysa wada quslaysa maalinba maalin kaleeto wey markii aan isku kalax tegin yaan maaragtay laysu sii dhammaynin waxaa weye onelfna mayna baabuin iyadu hadday kasii xoog weynaanaysaa wiilal iyo gabdho waxaa jooga bisil oo soo kacaya oo aan ka baxay dhiigooda mushahadadii agoontoodii baa joogta carruurtoodii baa joogta dad onelf ay aayo xataa haddii jabhadu magacaba ay beddesho xitaa dad aan weligood ka haraynin baa jira arrintan oo u tahay muhiim oo u tahay maaragtay xasuus ay u tahay marka walaal saas ogaanaysaan xuquuqdii shacabkii loo halgamayay lama gaarin lama helin shacabku weli addoonsi bay ku jiraan shacabkii tacliin ma jirto caafimaad ma jiro cadaalad ma jirto wax walbo aasaasi ah oo shacabkaas soomaaliyeed ee loo halgamaya maanta u haysto ma jiraan sabab marka laysu dhigto oo ama laysu qabiileeyo ama madaxa laysu qabto mala runtii culaysyada soo socda haddaad dareemaysaan qofka dareemayana maba una ku mashquuleen
qofka maanta kursi iyo qabiil iyo reer hebel iyo maadi ay u muuqanayaan waa qof waaqica dadkaas ku soo wajahan aan akhrin karin weeyaan qofka akhrin kara waxaas uma muuqdaan runtii waxaana loo baahan in la samro in la sabro baa loo baahan waad aragtay sabirka inta jeer ee diinta islaamku ay kusoo celcelisay runtii ahamiyadday leedahay qofkan waxaa lagu gartaa adeegiisa qadiyadiisa bisaylkiisa sida u sabro adoo lagu xadgudbay intaad u adkaysato adoon falcelin kara inaad falcelin oo aad liqdo kiniye kharaar inaad liqdo si aad yoolkaa u gaadho indhihiinu ha qabtaan maadayayna qabanin kuwan kale ee axmed yaasiin ha qabtaan yoolkiinu muxuu ahaa yoolkii halganka 35 sana uu soo jiray ee loo sheeday sheekh deeq waad ogtiin miyaad hilmaanteen xaaskiisii carruurtiisii isagoo soo salaamayba amar la siiyo yiri bax hadda boqolaalka nin ee hadda maaragtay is haystoo dhan dibadahay wada fadhiyeen xaaskoodii carruurtoodana maalin kamay dhaqaaqin laakiin sheekh deeq xaaskiisii carruurtiisii salaamu calaykum tu soo yiri isagoon kabi iska bixinin yaa lagu yiri sheekh deeq lagama maarmo hore ka noqo baabuurka raac meeshaad ugeydeen baana la dhigay ninkaa isagaa carruurtiisii iyo agoontiisii yaad uga tagteen markaad idinku maanta isqabsataan carruurtiisii iyo agoontiisii markay idin maqasho idinku oona lafcaynaya oo raggii u tilinaya oo caynaya maaha gumaysi maaha jawaasiisti idinkii xukumaya guddiga fulinta marka oonelf idaacadaha ula soo fadhiisataan iyo quurunwada caraatanka oonelf maxay idin dhihi doonaan waxay idin dhihi doonaan waa nin sharaf waa nin oonelf jecel miyaa idin dhihi doonaan waa dad qadiyala miyaa idin dhihi doonaan waxaa weeye walaalayaal waxaan leeyahay isgaabiya idinku ha xadgudbina waxaad ogaataan ninkiisa soo qaawiya ee halganka oonelf u soo dhardhigta caraatankiisa waxaa weeye toosh weyn oo afarqaad miyaa la dhihi jiray toosh weyn oo afarqaad aan dhaca kaga qabanaynaa isagaana cawrimi doonaa runtii isagoo qaawan buu ka tegi doonaa oonelf iyo xaquna way guulaysanayaan xubnaha kawaadirta agoonta iyo dadkii waddankaa u dhintay oo dhanna way jiri doonaan runtii marka waxaan dhihi doonaa qofkii oonelf aan ku qanacsanin wuu isaga kala tegi karaa wuuna mahadsan yahay meel allaala meeshuu raba ha maro qofkii maaday kasoo horjeesanaya wuu kasoo horjeesan karaa laakiin jabhadda oonelf iyo agoonta in laga daayo media lasoo fadhiisanayo ee lagu mashquulinayo runtii qofkii oonelf ka taga wuu ku tegey garabkaaga adaa galo ama xisbi kaleet bb raac ama amxaara raac ama ormo raac aday ku taala ammaansii walaalayaal idaacadda laakiin haddaad la soo fadhiisato adoo kitaab soo maray oo oonelf aad dacaayadayso oo oonelf iyo madaxdeedii aad kusoo mashquulsho waxaa loo arkayaa xataa halgankaagii hore calaamad su-aal weyn baa koraysa inaad awalna dan u timid dantaadii una aad raacanaysa bay noqonaysaa arrintaa iyada ayay noqonin walaalayaal xubnaha iyo kawaadirtuna ma aqbalayaan agoontii iyo armalooyinkii iyo dadkii jeelwaadeen kusoo jiray in idaacaddii aabbayaashoodii hooyooyinkood laga cayin jiray intii lasoo dhex fadhiisto sidoo kaleeto looga soo caayo oo welibana nin mas-uuliyiin oonelf sheegana intay soo fadhiistaan ay oonelf ka soo caayaan runtii arrin la xamili kara maaha waxaan dhihi lahaa arrinta iyadaa ha laga fogaado cabdiraxmaan sheekh maadi iyo tiim guud waqtigan guddoomiyaha dhaliilo badan baa jira dad badan waxay tirsanayaan ee dhaliiluhu way jiraan xaqiiqatan arrinta iyadaa been maaha way jiraan dad qaarkood waa ka daacad weye waxa u muuqda shaqo xumo waxa u muuqda waxayna saxo u baahan bay arkaan kuwa iyaga wax la inkiraya maaha dadka iyaga waa in la dhegeysto la qadariyo la maqlo waxay ka cabanayaan oo la saxo oo waxa la saxaya ugu muhiimsan waa xeerku markuu saxo wada dadku tiim yihiin reer hebel waxa la dhaho wax la aqbali kara male wajii reer hebel camal u hadlay wax la aqbali kara male runtii oonelf ma noqonayso reer hebel oonelf ma noqonayso juf oonelf mabda weeyaan dan soomaaliyeed buu taagnay dantaa soomaaliyeed bayna wadaysaa qofkii reer la aada ama jufo la aadana isaga aakharana seegaya adduunna seegaya xilkan wuu ku weynayaa xilka ummaddu u hayana wuu ku weynayaa oonelf ma noqonayso reer hebel hayada waa inaad hoosta ka xariiqdaan oonelf waa mabda loo wada dhintay la wada leeyahay dadkoo dhanna u dhexeeya fadlan marka taa ha la ogaado ha la qadariyo waxaan leeyahay welibana mar labaad maalin horena waan sheegay guddoomiye cabdiraxmaan sheekh mahdi tiimka ka agdhow ee guddoomiyihii garab taagan guddoomiyuhu meeshu ku jiro waxaa rabaa hadal macaan inuu ka soo baxo hadal dadka mideeyey inuu ka soo baxo
hadal dadka walaaleeya inuu ka soo baxo hadal muujinaya wixii in la wada leeyahay inuu ka soo baxo inay barnaamijyo qeexan oo laga wada tashtay ka soo wada baxaan qorshayaal isbuuclo bille sanadle 6 biloodle 3 biloodle inay ka soo baxaan baa loo baahan lama rabo wujuuh qabiixa oo qabiil iyo reer hebel aaminsan wujuuh aaminsan cabdiraxmaan sheekh maadi waa reer cabdille wax la aqbali kara maaha cabdiraxmaan sheekh maadi waaskii reer cabdillena maaha reer cabdillena ma matalo ninkii reer cabdille inuu yahay aaminsano waaskaagi doono maaha maadi waa mabda xornimo doon oo danta soomaaliyeed u taagan kaasuuna ahaanaya qofkii kaa wax ka bedelan la damcana waxaan leenahay haddaba isaga har ninkaas ma aha cabdiraxmaan wuxuu matalaa xubnaha iyo taageerayaasha iyo dadka soomaaliyeed ee raba in dadkaa dulmiga iyo gumaysiga laga bixiyo waa intaa waxaan idin lahaa guddoomiyaha agtiisa iyo xafiiskiisa intaad gashaan hadhowdiina qaab qabiil haddaa isu sawirtaan dadku way idin garan karaan dadku way akhrin karaan fariina fadlan guddoomiyaha agtiisa markaad ka soo baxdaan waa in hadal wanaagsan walaaltinimo islaamnimo isjacayl ay ka soo baxaan oo fariintaad qoraysaan ay noqoto haddiise aad reer hebel iyo qaab qabiil iyo qaab kooxaysi aad u dhaqantaan waxaan aaminaynaa inuu guddoomiyaha laftigiisu xafiiskiisa kooxaysi ka dhex wado guddoomiyaha laftigiisu xafiiska inuu kooxaysi iyo qabiilaysi ka dhex aqrinayaan aaminsanayna arrinta iyada ayayna dhicin marka guddoomiyaha dad ka soo agbaxaya dadka salaamaya dadka soo dhaweynaya waa inay u dhaqmaan qaab dadkii oo dhan walaalaynaya qaab soomaalidii oo dhan soo dhaweynaya qaab dadkii oo dhan ka farxad gelinaya qaabka noocaasa loo baahan qaabka qabiilka maaha qabiilku gumaysiga u danaynaysaa qaabka qabiilka iyo kooxaysigu waxay dan u tahay dadkii cabdiraxmaan raba inay dhiiqeeyaan oo cabdiraxmaan ay fashiliyaan oo cabdiraxmaan uunan waqti guddoomiye uu guul gaarin wayaan waa inaan marka qof walba oo guddoomiyuhu muddadu xilka haya la rabo wanaag iyo horumar waa inuunan marnaba qaab qabiil u fakerin waa inuunan marnaba qaab qaybsamid bulshada u fakerin waa inaad u fakertaan waqtigan guddoomiyuhu joogay ee yar in si sharaf leh wax loo qabto ummaddana danteeda laga shaqeeyo aad baan ugu dheeraaday hadalka intaasaan rabay inaan ka hadlo runtii awnelef way guulaysanaysaa hawlwelina weligiin ilka caddeeya weligiin faraxsanaada xaqu mar walba wuu guulaysanaya nabigeena calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi mu'miniinta waan dhaxalsiinaynaa buu yidhi adduunyada mu'miniinta waan dhaxalsiinaynaa eraygaa isaga niyadiina haddaad mu'miniintiin wayaa dabcan mu'miniinta ilaahay wuxuu leeyahay waan dhaxalsiinaynaa adduunyada qofkii soomaali ahaa ee dadkaas soomaaliyeed la gumaysto inay xornimo gaaraan rabi ee sharaf yeeshaan rabi ee qayrkood la tartamaan noqdeen yoolkii isagaa gundhaha ku haynayaa ma arkay reer hebel iyo dana shakhsiyadeed iyo kursi iyo maxaa kan iyo maadey baa reer cabdille iyo hebel baa kan reer hebel iyo kan iyo waa laysu kaykaashaday waxa ma eegayo wuxuu eegayaa yoolkii loo halgamay ma la gaarin yoolkii gabdhii jeelwaadin u galeen ay noloshoodii uga dhaceen ma la gaarin yoolkii agoontu iyo ma la gaarin waa may yoolkaa marka ishaagu markay qabato ma arkaysi waxaan ka hooseeya marka ma aaminaysi waxaan idin leeyahay qalbi jabinina ONLF waa sharaf qofka ONLF ku soo hara waxaa u soo hadhay sharaftii soomaalinimadii baa u soo hadhaysa diintiibsi baa u soo hadhaysa cisigii baa u soo hadhay kii ka baxana wuxuu helayaa wax kale ma helayo gunnimo wuxuu helayaa gumaysi wuxuu helayaa qaad dibjirnimo nolol ma jirayso wadogtiin ONLF kitaabada akhrinaya dad ilaahay ka baqaya dad soomaalinimada jecel hadda waa aragtan city markuu wax ka dhaco yaa hadla ONLF baa hadasha dad kale may hadlaan sababtoo damiirkii uu ka dhimanayaa markii mooyaale dadka shacabka la weerara yaa hadla taageerayaasha ONLF baa meel walba ka hadla hargeysa haddii lagu xadgudbo yaa hadla ONLF taageerayaasha hadla sababtoo geedka wadaniga ee soomaaliga ee sharafta ee ciziga kaasaa ku duugan qofkii ONLF u soo harana uu noqonaya ilaa may noqdaan 20 30 may noqdaan marka kuwa u soo hara baan noqonaynaa anigu kuwaasaan horta ah ilaahay hadduunan may dhihin haddaanan waalanin hadduuna caqliga iga tegin kuraas wan waaye haddaba kuraas ma haysto kursi la'aan baan ahay xil ma hayo runtii dad badan oo ka aqoon badnayna meesha weyba joogaanba oo runtii ka barnaamij ficnaan lahaa laakiin kursi umaana soo gelin kursi maana soo gelin inaan xil qabto umaana soo gelin waxaan u soo galay inaan dadka dulumka lagu hayo ee ehelkayga ah aan u heliyo intaan baahay ولين الدروب كيبا سيدي بتاعي سيدي بقى وضع معي تعليم مجرته عافماد مجرته اسبيتال مجرته قرصور مجرته dadka gurigooda intii laga xoogaa super looga been la sameysanayo xoog loo qaadanaya meel dacwoodana ma laha hantidoodii baajidkoodii waxoodii waa aragteen
xuquuqdoodii o dhanna way dhimantahay marka halganku muuna dhammaanin wuu socdaa ina si wadin u baahan yahay meel walbo joogtaan wiilasha iyo gabdhaha waan idin ogahay waxaa jira gabdho iyo wiilal dhuux leh oo halgamayaal oo dhab ah kuwaasoo aan kuraas iyagoo ku murmaya lama arko xil iyagoo ku murmaya lama arko qabiil iyagoo ku murmaya lama arko iyagu shaqadoodii unbay qabtaan mar walba kaalin walba oo soo baxda wiilasha iyo gabdhaha qaar badan baan aqaanaa runtii aad iyo aad baan idinka salaamaya haddaad tahay wiilashaas iyo haddaad tahay gabdhahaas aad baan idin salaamaya ilaahay ha idin xifdiya runtii waanad guulanaysaan marna ha walwalina maadi hadduu xumaado yeynidin cabsi gelin axmed yaasiin hadduu xumaado yeynidin cabsi gelin xasan macalin hadduu xumaado yeynidin cabsi gelin niyaddiina ilaahay baad khayru khalqillah baad ku xiraysaan mar walbana waxaad qabanaysaan wixii karaankiina yaad qabanaysaan sababta idinku dadka saad rabtaan kama dhigi kartaan laakiin waxaa muhiima inaada hagranin insha allahna waa la guulaysan doonaa waxaana hoogaya qof walba oo agoontii khiyaamay qof walba oo dhibanayaashii jajabkii khiyaamay qof walba oo khilaaf halgankaa ku dhex wada isaga aakhirana seegi doona adduunna seegi doona isaga halgankiisa been ka dhigi doona ninkii idaacadaha usoo fadhiista maanta inuu maaragtay halgankii ku weersado oo agoontii ku weersado oo wiilka curyaanka ah ee aan socon karin ee kaariyaalayaasha lagu wado ka xishoon waaye edhi waa wiilkii intaa lagu yisiiyey dalkii dadku usoo go'ay jabhadaas ayde aliista ku dhaga hadlay qofka garan waaye ee halkaa usoo fadhiistay maalin walba khilaaf baa haysta yacni runtii dadka iyakaa ka shalayn doona hala somra aad baa idin salaam meel walba joogtaan walaalkan khaliif cabdicali waan ku dheeraaday laakiin fariintan inay iga gudubta baan rabay inaan iska rida baan rabay sababto waa waajib wey nabigana calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu yidhi qofkiini waxun arka ha sheego maanta waxaan u sheegay cabdiraxmaan sheekh maali maalinkii qalin baa lagu dagaalami la yidhi baan u sheegay waan ku yidhi guddoomiyaha hadduu fariintan maqlan uu ogyahay barnaamijkii halganka maadaama la bedelo qalin la yidhi barnaamij cusub oo qeexa oo dhinac walba u dhammaystiran oo xeera ha la dejiyo baan ku yidhi xeerkaa haddii la dejiyo dadku waxaa la garanayaa qofka xeerka jebiyey iyo qofka aan xeerka jebin meesha hadda lagu murmayo waxaa la dhihi lahaa hebel xeerkaa qodobkaasu jebiyey laakiin ilaa hadda qof ay qodob hebel baa la jebiyey ma jiro sababto ma jiro qodob iyo xeer cad oo la dejiye ma jiraan meesha laysku haystana waa halkaa wey dadkuna cadow ma aha mana isnecba ee waxay u baahan tahay maskax fayow sababto nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi jirka cad baa ku jira cadka hadduu hagaagaan wax walbu hagaagayaan cadkaana wuxuu yidhi waa qalbiga waa niyadda hadday hagaagto everything maadii haddaad ka dhigato nin adeerka walaalka guddoomiyahaagii ah waqti yar 4 sano inuu haynayo aad caawiso u fududayso waajibaadkiisa intaas ku noqon haddaase dhad waa reer hebel iyo waa cadow iyo kan iyo kursi iyo lacag ku haysta iyo adduun haddaa istustana waxaa weye saas ku noqonaya marka niyaddiina wanaajiye waxaad qaban kartaan qaba wixii khaldan idinku hor yimaado waxaad sixi kartaan saxa waxaad sixi weydaanna ilaahay u daaye ilaahay baa saxaya aad baa idin salaamay meel joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu